dagaal xoogan ayaa waxa uu ka dhacay deegaanka Saakow oo ka tirsan gobolka Jubbada Dhexe halkaasi oo lagu weeraray xubno ka tirsan kooxda Al-Shabaab waxaana weerarkaasi fuliyay ciidamo ka tirsan xoogga dalka Soomaaliya si gaar ah ciidamada sida gaarka u tababaran ee danab kuwaas oo watay diyaaradaha dhanka hawada wax ka duqeeya oo saacidayay iyo sidoo kale ciidamo kale oo ayna gaar ah oo ka diganaya baarashoodo kuwaas oo si toos ah ugu hoobanayay deegaanka Saakow ee gobolka Jubbada Dhexe haddaba dagaalkaas khasaare intii leeg ayaa ka dhashay haatan ayaa ku sugan deegaanka oo dagaalku ka qarxay macluumaad dheeraad ah oo ku saabsan dagaalka ka dhacay deegaanka Saakow ayaan warbixintaani ku dul istaagaynaa muwaadin Soomaaliyeedna waxaa lagu dilay magaalada Cape Town ee dalka South Africa kaasoo ay qaarijiyeen maleeshiyaad hubeysan haddaba maxay u dileen marxuumkaasi Soomaalida ku sugan gudaha dalka South Africa maxaa xal ah oo ay dadkaasi ku badbaadi karaan safarada Soomaaliya ee dalka South Africa maxay tahay sababta ay wax kaga qabaladahay muwaadiniinta Soomaaliyeed ee lagu beegsanayo dukaamankooda oo ku yaala gudaha dalka South Africa macluumaad xasaasi ah oo ku saabsan xasuuqa loo geysanayo dadka Soomaaliyeed ee ku sugan South Africa ayaan warbixintaani sidoo kale aan kugu hayaa ka hor intii aan u gudgelin xogahaasi xasaasiga ah waxaanu ka codsanaynaa inaad ku soo biirtaan YouTube-keena muuqaalkana aad la gareysaan oo aad la sii wadaagtaan saaxiibadiin wararka ka imaanaya deegaanka Saakow ee gobolka Jubbada Dhexe ayaa sheegaya in ciidanka xoogga dalka Soomaaliya si gaar ah ciidamada sida gaarka ah u tababaran ee danab ay xalatooda ku daateen gudaha deegaankaas kadib markii diyaaradihii ay kaga hoobteen baarashoodyo ayadoo halkaasi ay xabad ka bilaabeen dagaal xoogan ayaana halkaasi waxa uu ka dhex maray xubnihii ka tirsanaa kooxda Al-Shabaab iyo ciidamadii weerarka ku qaaday saldhigyadii ay ku sugnaayeen xubnaha ka tirsan kooxda Al-Shabaab ee ku sugnaa deegaanka Saakow waxaa la tilmaamay in ciidamadu ay halkaasi fuliyeen iyagoo si taxadir ah u fulinayay dadka shacabka ayaana waxa ay soo wariyeen inay maqleen rasaas waaweyn taasi oo ay u adeegsanayeen ciidanka xoogga dalka Soomaaliya xubnihii ka tirsanaa kooxda Al-Shabaab ee weerarka lagu qaaday waxa ay ciidamada xoogga dalka Soomaaliya war ka soo baxay ay ku sheegeen in ciidamadu ay dileen dhowr xubnood oo ka tirsan kooxda Al-Shabaab kuwaas oo ku sugnaa gudaha deegaanka Saakow kadib markii ay weerareen ciidamada xoogga dalka Soomaaliya sidoo kale waxaa la tilmaamay in diyaaradaha dhanka hawada wax ka duqeeya ay duqeymin xoogan u geysteen xubnihii ka tirsanaa kooxda Shabaab ee ku sugnaa deegaanka Saakow ee gobolka Jubbada Dhexe waxaana halkaasi ay ku warantay warbaahinta ku hadasha afka ciidanka xoogga dalka Soomaaliya in xubnihii ka tirsanaa kooxda Al-Shabaab ay la kulmeen khasaare aad u baaxad weyn ama sidoo kale deegaankaasi loogu geystay khasaare aad u tiro badan kadib markii ciidamadu ay fuliyeen howlgalkaas oo ahaa mid qorsheysan oo ay soo abaabushay wasaaradda gaashaandhigga ee xukuumadda Soomaaliya oo kaashanaysa saaxiibada caalamiga ah ee sida weyn ula taageera ciidamada xoogga dalka Soomaaliya waxa ciidamada xoogga dalka Soomaaliya ay tilmaameen in khasaarahaas kooxda Al-Shabaab gaaray ay dib ka sheegi doonaan inta ay gaarsiisan yihiin laakiin ilaa iyo hadda ma aynan sheegin tirakob rasmi ah oo ku saabsan xubnaha ka tirsan kooxda Al-Shabaab khasaaraha ku gaaray dagaalka ka dhacay deegaanka Saakow dhinaca kooxda Al-Shabaab ilaa iyo hadda ayagu kama aynan hadlin dagaalka ka qarxay deegaanka Saakow kaasi oo ah deegaan ay ku sugan yihiin xubnaha ka tirsan kooxda Al-Shabaab kana mid ah deegaanada ay aadka ugu xoogan yihiin waxaana muddooyinkii ugu dambeeyay xoogeysanayay weerarada ka dhanka ah kooxda Al-Shabaab kuwaas oo ka dhacaya gobolka Jubbada Dhexe iyo gobolka Jubbada Hooseba ciidamada xoogga dalka Soomaaliya ayaa dhowr mar fuliyay weerar ka dhan ah kooxda Al-Shabaab kuwaas oo lagu bartilmaameedsaday horjoogayaal iyo askar dirata oo ka tirsan kooxda Al-Shabaab waxaana weerarkii ugu dambeeyay uu ka dhacay xalatoole deegaanka Saakow ee gobolka Jubbada Dhexe sidoo kale deegaankaas ka hor ciidamada xoogga dalka Soomaaliya si gaar ah ciidamada sida gaarka u tababaran ee danab waxa ay weerareen degmada Jilib taasoo la aaminsan yahay in ay tahay halka ay ku sugan yihiin horjoogayaasha ugu sarsareeya kooxda Al-Shabaab waxa ciidamadu sheegeen in halkaasi lagu qaarijiyay 15 dagaalame oo ka tirsan kooxda Al-Shabaab oo isku jiray horjoogayaal iyo xubno diriro oo ka tirsan kooxda Al-Shabaab sidoo kale wasaaradda gaashaandhigga ayaa tibaaxday in gacanta lagu dhigay 8 xubnood oo ka tirsan iyana kooxda Al-Shabaab kuwaas oo iminka lagu haya qaybo kamid ah gobolka Jubbada Dhexe iyo gobolka Jubbada Hoose halka ay kaga sugan yihiin ciidamada xoogga dalka Soomaaliya dowladda dhexe ee Soomaaliya sidoo kale waxa ay sheegtay in howlgallada ka dhanka ah kooxda Al-Shabaab ay sii socon doonaan laguna bartilmaameedsanaya kooxda Al-Shabaab horjoogayaashooda goobaha ay kaga sugan yihiin maamulka Jubbaland waxaana maalmo ka hor sidoo kale gobolka Gedo ee koonfurta Soomaaliya si gaar ah agagaarka degmada Baar Dheere ee gobolkaasi ka dhacay weerar qorsheysan oo ay fuliyeen ciidamada xoogga dalka Soomaaliya kuwaasi oo wasaaradda gaashaandhigga ee xukuumadda Soomaaliya ay sheegtay inay dileen dhowr xubnood oo ka tirsan kooxda Al-Shabaab kadib markii ay ku hoobteen halkii ay ku sugnaayeen waxaana muddooyinkii ugu dambeeyay batay ciidamada xoogga dalka Soomaaliya ka tirsan oo baarashuudyada kaga diganaya goobaha ay ku sugan yihiin xubnaha kooxda Al-Shabaab kadib markii ay helaan in ay xubnaha ka tirsan kooxda Al-Shabaab ay ku shirayaan deegaanadaas
iyo sidoo kale inay kooxda al-shabaab ay dhankooda ay qorsheynayso weerar ka dhan ah ciidanka qalabka sida ee Soomaaliya. duqeyman dhowr ah oo isxiga ayaana waxa ay ka dhacayeen muddooyinkii ugu dambeeyay gobolada dalka kuwaas oo lagu bartilmaameedsanayay xubnaha ka tirsan kooxda al-shabaab. Shalatooda ciidamada xoogga dalka Soomaaliya ayaa waxa ay soo bandhigeen ciidankii ugu badnaa kuwaas oo la doonayo in lagu qabto deegaano muhiim ah oo ka tirsan maamul goboleedyada dalka sida maamulka Hirshabelle iyo kan Jubbaland, waxaana ay ciidamadu sheegeen in targetkooda ugu weyn uu yahay inay qabtaan magaalada qadiimiga ah ee Maxaas taas oo al-shabaab ay la wareegeen 13 sano kadib, iyo sidoo kale degmada Muqokuri oo iyana ay gacanta ku dhigeen sanado kadib markii ciidamada xoogga dalka Soomaaliya ay ka saareen. sidoo kale degmada Aadan Yabaal ayaa waxa ay tahay goob muhiim ah oo ciidamada xoogga dalka Soomaaliya ay doonayaan inay kooxda al-shabaab gacanteeda ay ka saaraan kadib markii ay ku geeriyoodeen halkaasi dagaalkii ka dhacay oo kooxda al-shabaab weerarkiisa ay soo qaaday saraakiil iyo askar ka tirsan ciidanka xoogga dalka Soomaaliya kuwaasi oo gacanta kooxda al-shabaab ku baxay. laakiinse waxa ay ciidamada xoogga dalka Soomaaliya si gaar ah saraakiisha hogaaminaysa ciidanka xoogga dalka Soomaaliya ee shalatooda ka hadlay degmada Matabaan ee gobolka Hiiraan ay sheegeen in loo aari doono askartigii lagu dilay degmada Aadan Yabaal ee gobolka Shabeellada Dhexe. kooxda al-shabaabna ay ogaan doonaan in ciidanka xoogga dalka Soomaaliya halkaas ku naf waayay ay leeyihiin dad kale oo dhiigooda ka damqada. dadka halkaas ka hadlay ama saraakiisha halkaas ka hadashay waxaa kamid ahaa taliyaha ciidanka lugta ee xoogga dalka Soomaaliya Generaal Sahal, waxaana uu sheegay in uu ciidamada xoogga dalka Soomaaliya ku dhiirigelinayo dagaalka ka dhanka ah kooxda al-shabaab si ay u sii wadi lahaayeen oo ina kaga qabsan lahaayeen deegaano muhiim ah oo dhaca maamul goboleedyada dalka sida Hirshabelle iyo Jubbaland. gobolka Galgaduud qaybo badan oo kamid ah ayaa sidoo kale muddooyinkii ugu dambeeyay howlgalladu ka dhacayeen kuwaas oo lagu bartilmaameedsanayay xubno ka tirsan kooxda al-shabaab. agagaarka degmada Ceeldheer ee gobolkaasi ayaana waxay kamid ahayd goobaha ay ciidamada xoogga dalka Soomaaliya ay ku bartilmaameedsanayeen horjoogayaasha iyo xubnaha kooxda al-shabaab. dhowr mar ayaa halkaasi waxa ka dhacay howlgallo qorsheysan kuwaas oo lagu qaarijiyay horjoogayaal iyo askar ka tirsan kooxda al-shabaab kuwaas oo yoolkooda ahaa in ay deegaano ka tirsan maamulka Galmudug ay weerar ku qaadaan. laakiin ciidamada qaybta wardoonka ee xoogga dalka Soomaaliya ayaa xogahooda helaysay taasoo sababaysa in ciidamada xoogga dalka Soomaaliya ay weeraraan saldhigyada ama qorshaha kooxda al-shabaab ay ka hortagaan. sidoo kale dhinaca kooxda al-shabaab ayana waxa ay muddooyinkii ugu dambeeyay ay qorsheynaysay weerar ka dhan ah ciidamada xoogga dalka Soomaaliya. weerarkii ugu dambeeyay ee soo qaadeen waxa uu ka dhacay deegaanka Wargaadhi ee gobolka Shabeellada Dhexe ee maamulka Hirshabelle, kaasi oo ay ku soo qaadeen ciidamada xoogga dalka Soomaaliya saldhigyo ay ku sugnaayeen oo ay ku soo qaadeen weerar kala duwan kuwaasi oo ka socda dhowr jiho oo kala duwan. ciidamada ayaana waxay iska caabiyeen weerarka qorsheysnaa ee ka yimid dhinaca kooxda al-shabaab taasoo sababtay in ciidanka xoogga dalka Soomaaliya ay guul muhiim ah ka gaaraan. sida ay sheegeenna waxa ay kooxda al-shabaab ay u geysteen jab aad u xooggan kadib markii kooxda al-shabaab ay isku dayday inay deegaankaasi ay gacanta ku dhigto. dowladda madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud ayaa dhankeedu waxa ay doonaysaa in kooxda al-shabaab si weyn looga fogeeyo gobolka Shabeellada Dhexe halkaasi oo dalka Turkiga uu ka sameynayo tijaabada dayax-gacmeedka. waxaana madaxweynaha Turkiga Rajab Tayyip Erdogan oo madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ugu sheegay magaalada Ankara ee caasimadda dalka Turkiga in ciidanka qalabka sida ee Soomaaliya kooxda al-shabaab ay ka durjiyaan agagaarka degmada Warshiq halkaas oo Turkiga uu ka sameynayo tijaabada dayax-gacmeedka. waxaana Rajab Tayyip Erdogan oo madaxweynaha Soomaaliya ku bogaadiyay howlgallada dalka ka socda iyo sida ciidanka xoogga dalka Soomaaliya ay ula dirirayaan kooxda al-shabaab. laakiin waxa uu tilmaamay in ay lagama maarmaan tahay in kooxda al-shabaab deegaanada ay ku soo dhawaatay oo kamid yihiin deegaanada hoos yimaada degmada qadiimiga ah ee Warshiq ay lagama maarmaan tahay in kooxda al-shabaab laga durjiyo oo ciidamada xoogga dalka Soomaaliya ay guul ka gaaraan. waxa uu hadalka madaxweynaha Turkiga Rajab Tayyip Erdogan u yimid kadib markii lagu arkay intii ay dhacayeen doorashooyinka golaha deegaanka xubno ka tirsan kooxda al-shabaab oo soo gaaray agagaarka degmada Warshiq ee gobolka Shabeellada Dhexe ee maamulka Hirshabelle. waxaana taasi ay sababtay in Rajab Tayyip Erdogan uu si weyn kaga walaaco arrintaas asagoo u cabsi qaba danihiisa gaarka ah ee ka socda Soomaaliya sida dayax-gacmeedka uu ka tijaabinayo Soomaaliya si gaar ah gobolka Shabeellada Dhexe. sidoo kale Rajab Tayyip Erdogan ayaa waxa uu doonayaa in Soomaaliya dalkiisu uu ka soo saaro shidaalka sanadkan 2026. waxaana Rajab Tayyip Erdogan madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud oo kula dardaarmay in ciidanka xoogga dalka Soomaaliya ay laba jubaaraan weerarada ka dhanka ah kooxda al-shabaab. ciidamada xoogga dalka Soomaaliya oo qaadanaya hadalka madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud oo dhankiisa bogaadin ka soo helay madaxweynaha Turkiga Rajab Tayyip Erdogan ayaa waxa ay fuliyeen dhowr weerar oo dhanka cirka ah kuwaas oo lagu bartilmaameedsaday xubno ka tirsan kooxda al-shabaab. waxaana badankood ciidanka xoogga dalka Soomaaliya ay sheegayaan in ay guulihii ugu muhiimsanaa ee loo baahnaa ay ka gaareen xubnaha kooxda al-shabaab.
wax walba oo ka soo kordha howlgallada dalka ka socda iyo sidoo kale qorshayaasha ciidanka xoogga dalka Soomaaliya ay ka leeyihiin in kooxda al-shabaab looga awood roonaado maamul goboleedyada dalka waxaad ku maqli doontaan wararkan iyaga iyo warbixinadeena soo aadanay haddii aan u weecano dhinaca dalka South Africa. muwaadin Soomaaliyeed oo dukaan ku lahaa magaalada Cape Town ee dalka South Africa ayaa xalay toole la dilay waxaana dilkiisa geystay kooxo burcad South African ah kuwaasi oo qaarijiyay marxuumka oo ku sugnaa dukaankiisa oo ku yaala gudaha magaalada Cape Town ee dalka South Africa. marxuumka la dilay ayaa lagu magacaabi jiray allaha u naxariistay Kadiye Maxamuud Cabdi Dhiciso wuxuuna ka mid ahaa ganacsatada horumarka ballaaran ka sameeyay gudaha dalka South Africa kuwaasi oo yool weyn ka lahaa dalkaas South Africa in ay ganacsiyada ku horumariyaan laakiinse kooxahan hubeysan ayaa dilka u geystay waxaana kolkii dilka uu dhacay kadib goobta gaaray booliiska dalka South Africa ayagoo sheegay inay baaritaan sameynayaan gacantana ay ku soo dhigayaan burcadda South Africaanka ah. laakiin ilaa hadda ma jirto cid ku guuleystay soo qabashada burcadda South Africaanka ah ee qaarijisay marxuumkaas waxaana ilaa hadda ay ku sugan yihiin gudaha dalka South Africa ayagoo dilaya Soomaali kale haddii aysan booliiska iyo sidoo kale safaaradda Soomaaliya ee ku sugan dalkaasi South Africa ee safaaradda Soomaaliya ee ku taala South Africa aynan iska kaashan sidii dacwad loogu oogi lahaa kooxaha hubeysan gacantana loogu soo dhigi lahaa maadaama dalkaas uu yahay dal horumarsan oo la heli karo kaamirooyinka waxa ay duubeen iyo muuqaaladii cadeynaya dilka sida uu dhacay booliiskuna ay u fududaa karto inay gacanta ku soo dhigaan kooxahaas dilka geystay haddii la aqoonsado. dadka Soomaaliyeed ayaa muddooyinkii ugu dambeeyay waxay la daala dhacayeen dilal ay u geysanayaan burcadda South Africaanka ah dhowr qof oo kala duwan ayaa gudaha magaalada Cape Town ee dalka South Africa lagu dilay waxaanan jirin ilaa hadda dadkii dilalkaasi loo geystay cid ku guuleystay dadkii dilalka u geystay. dhowr mar ayaana dadka Soomaaliyeed naftikooda lagu eedeeyay inay qayb ka yihiin dilalka ka dhacaya gudaha dalka South Africa waxa ay sheegayaan ganacsatada ku sugan gudaha dalka South Africa Soomaalidu inay ismishimaan ama ay dilalkooda qorsheeyaan waxa la sheegay in ganacsatadu isku dagaalaan dhaqaalaha iyo ganacsiga taasoo sababaysa inay ganacsatadu isku adeegsadaan burcadda South Africaanka ah taasoo aan ka naxaynin dhiiga dadka Soomaaliyeed ee ku sugan gudaha dalka South Africa. dhowr mar ayaana waxa dilalku ay ka dhaceen gudaha magaalada Cape Town halkaas oo ah meesha ugu badan ay ku sugan yihiin ganacsatada Soomaaliyeed ee ganacsiyada kala duwan ku leh. dadka qaar ayaa lagu gubaagay dukaamankooda ayagoo xilliyada habeenkii hurdaya kadib markii gaas lagu bilbilo guryaha ay ka degan yihiin ama goobaha ganacsigooda oo ku yaala dalka South Africa. dadkaas ayaa badankood waxa ay la kulmaan dhimasho iyo dhaawac maadaama gurigii ay ku sugnaayeen asagoo ku xiran halkaas uu ku gubanayo kadib markii gaaska lagu bilbilo. dowladda dalka South Africa si gaar ah laamaha amniga ayaa waxa ay sheegeen jaaliyadda ku sugan dalka South Africa ee Soomaaliyeedna ay u xaqiijiyeen in dilalka korkii la baaray badankood ay ku soo biyo shubtaan Soomaalidu inay gadaal ay ka riixayaan amaba ayagu ay qarash la daba taagan yihiin waxaana taas ay muujinaysaa dadka Soomaaliyeed halka ay taagan yihiin dhaqaalihiina ay isku dirarayaan sidoo kale gudihii dalalka caalamka oo ay tageen halkii looga baahnaa inay ku heshiiyaan ay isku beegsanayaan naftirkooda. si kastaba ha noqotee waxaa lagama maarmaan ah in safaaradda Soomaaliya ee ku sugan dalka South Africa iyo jaaliyadaha Soomaaliyeed ay iska kaashadaan sidii xal loogu heli lahaa tacadiyada iyo dhibaatooyinka amni darro ee ganacsatada Soomaaliyeed ee dalka ka cararay ay wax looga qabto sidoo kalena laamaha amniga ee dalka South Africa ay la kaashtaan sidii xal loogu heli lahaa dilalka loo geysanayo muwaadiniinta Soomaaliyeed oo markasta dhiigooda lagu daadinayo gudaha dalka South Africa. Soomaalidu waxay ka mid yihiin dadka ugu badan ee lagu laayay gudaha dalka South Africa waxaana ku soo xiga Ethiopia oo iyana dadkooda lagu dilay gudaha dalka South Africa. qabuuro kala duwan oo Soomaaliyeed ayaa waxa ay ku yaalaan gudaha dalka South Africa. dhowr qof oo Soomaali ah oo sidoo kale ahaa dad han sare ka lahaa ganacsiga dalka South Africa ayaa la qaarijiyay kuwaasi oo ilaa hadda aynan jirin cishigi karta waxa loo dilay laakiin gadaal ay ka tagan yihiin sida ay sheegayaan dadka Soomaaliyeed ee ku sugan gudaha dalka South Africa Soomaali kale oo qarash ku bixisay dilkooda. wax walba oo ka soo kordha dhamaanba xaaladaha murugsan ee ka taagan dalka South Africa iyo beegsiga ganacsatada Soomaaliyeed oo sii kordhaya waxaad ku maqli doontaan wararkan iyaga iyo warbixinadeena soo aadan haddii aad nala soo gaartay ilaa dhamaadka muuqaalka waxaanu kaa codsanaynaa inaad ku soo biirtid YouTube-keena muuqaalkana aad la gareysid oo aad la sii wadaagtay saaxiibada mahadsanid.